السلام عليكم واتاي داوديال سو دhowaada asxaabay maxaad ka taqaanaa New York City magaalada bilyaneerada caalamka New York City waa magaalada ugu dadka badan guud ahaan wadanka Mareykanka waxay dhacdaa gobol dhaca waqooyi bari Mareykanka ee New York waa magaalo astaan u ah jiritaanka dalkaas ahna mid ugu muhiimsan waxa ku nool in ka badan 8 milyan oo qof halka ay ku xeeran yihiin ilaa 22 milyan oo qof waa magaalo looga hadlo in ka badan 800 oo luuqadood waa magaalada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee jinsiyo kala duwan ka soo jeeda waxa ku nool in ka badan 3 milyan oo qof oo aan ku dhalan gudaha Mareykanka waa meesha ay ku nool yihiin Chinese-ka ugu badan ee ku nool meel ka baxsan Asia si la mid ah Yuhuudda ugu badan ee ku nool meel ka baxsan Israa'iil New York iyo inta ku xeeranba waxay leedahay dhaqaale kor u dhaafaya 2 trilyan oo dollar haddii ay dal ahaan lahayd waxay noqon lahayd dalka sideedaad ugu dhaqaalaha badan dunida waxay ka dhaqaale badan tahay wadamo ay ka mid yihiin Ruushka, Brazil iyo Canada si la mid ah dhaqaalaheeda u gaarka ah waa in ka badan 824 bilyan oo dollar waa magaalada ay ku nool yihiin bilyaneerada ugu badan caalamka 105 bilyaneer oo tirada bilyan dollar dhaafa ayaa ku nool waa in ka badan isku darka inta ku nool UK, France iyo guud ahaan Afrika sidoo kale waxa ku nool in ka badan 380 milyaneer waa tiro ka badan dadka ku nool guud ahaan wadanka Iceland muddo 400 sano ku dhow ayay samaysan tahay New York 95 sano ayay ahayd caasimadda Mareykanka sidoo kale muddo 230 sano ah ayay tahay magaalada ugu weyn ee Mareykanka waxay astaan u tahay nabadda iyo xorriyadda qarniyadii ugu dambeeyay waxay qaabilaysay muhaajiriinta ugu badan ee qaaradda ka kala yimid waa magaalo xarun u ah dhaqaalaha dhaqanka iyo warbaahinta dunida sidoo kale waxay hogaaminaysaa ganacsiga madadaalada cilmi baadhista tiknoolajiyadda waxbarashada siyaasadda dalxiiska farshaxanka ciyaaraha iyo modelka waa xarunta qaramada midoobay iyo boqolaal hay'adood oo hoos taga iyo kuwa madax bannaan ay ku yaalaan sanad kasta 5 milyan oo dalxiisayaal ah ayaa booqda magaaladaas waxa ku yaala maktabadda saddexaad ee caalamka ugu weyn ay gudaheeda yaalaan in ka badan 50 milyan oo buug sidoo kale waxa ku yaal in ka badan 120 jaamacadood waa magaalooyinka mid ka mid ah bangiyadeeda uu yaal kaydka dahab ee ugu ballaaran dunida dahab lagu qiyaasay 90 bilyan oo dollar ayaa ku kaydsan magaaladaas New York waxa kale ee ku yaal labada suuq sarif ee caalamka ugu weyn ee New York Stock Exchange iyo Nasdaq 2019 xog ururin la sameeyay oo lagu ururiyay dadka ku nool in ka badan 40 magaalo ayaa lagu doortay inay tahay magaalada ugu wanaagsan dunida maamushana dhaqaalaha ganacsiga iyo hantida ugu badan daawada xogtan shiilan ee aanu ka diyaarinay magaalada New York City magaalada bilyaneerada caalamka sidoo kale ah magaalo ku talax tagtay waxa badan nolosha asaasiga faalladaada hal iyo laba noogu reeb comment fadlan fiidiyoga like saarsiina share garow. Assalaamu calaykum.